كشيخ وحو casharkii hore kii kasoo hadlayay qaabka xadiidka loo kala qaadanayo iyo qaabkii hadday noqoto taxamulkii iyo hadday noqoto adaagii siiqooyinkii iyo qaabka xadiidka lagu werinayay iyo waxyaalihii la midka ahaa ayuu inoo soo sheegay casharkii hore oo kii ugu dambeeyey ay ahaayeen ijaazada iyo wasiyada kitaabka in dardaaran ahaan loo bixiyo ama qofka khadkiisii oo meel ku qoran fartiisii la helay iyo wixii la mid ah. إن شاء الله تعالى كسي عن بقالنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ حلي هاي ثم الرواة انت هورا كدب روادي ورياشي حديث كورينيي إن اتفقت أسماءهم هدي مقعيدو دي أي إسوافقان هدي اسكم مقع نقضان وأسماء آبائهم فصاعدا sidoo kale haddii ay iswaafaqaan oo isku mid noqdaan magacyada aabbayaashood fasaacidan iyo wixii kasii koreeya sida magacii labadoodii magac baa isku mid noqday magacyadii aabbayaashood baa isku mid noqday magacyadii awowayaashood baa isku mid noqday fasaacidan halkaasi ku socotaa marka magacoodii kii aabbahood iyo wixii kasii badanba haddii ay iska waafaqaan oo isku mid ka noqdaan wakhtalafat ashkhaasuhum laakiin ashkhaasi dad kala duwan ay yihiin weriyaashii iyagoo magacyadii ka siman oo isku magac ah haddii ay iyaga iyo aabbayaashood iyo awowayaashood ay isku magac noqdaan laakiin ashkhaas ahaan ay kala duwan yihiin fa huwa waxa weeyaan almuttafiq walmuftariq magacan uu leeyahay marka weriyaasha isku magaca ah iyaga iyo aabbayaashoodba waxaa la yidhaahdaa muttafiq iyo muftariq laba erey oo isla socda weeyaan lama kala goynayo marka waxa weeyaan almuttafiq waxay ka waafaqsan yihiin waa isku mid ka yihiin magacyadii walmuftariq waxay ku kala tagsan yihiin oo ay ku kala duwan yihiin ashkhaastii marka sababta saa loo leeyahay waxa weeyaan dadkan isku magaca marka la arko in dadka saa u kala duwan aan loo malaynin inay hal qof yihiin dadkii badnaa hal qof in aysan isku noqonin oo saa loo fahmin ayaa magacan loogu bixiyey وإن اتفقت هدي أي إسوافقان اسكو مid noqdaan الأسماء magacyadii خطا qoraalkii marka la eego haddii ay magacyadii isku mid noqdaan oo khad ahaan ay isu eg yihiin waxaan u baahana inaan xusuusanno afka carabiga marka la qorayo sida tusaale ahaan ba'da iyo ta'da iyo sa'da isku qaab bay u dhigan yihiin xarafka u dhigan yahay marka waxa keliya ku kala duwanaanayaan waxay noqonaysaa dhibcihii mar waxaa jirta xitaa ereyada marka la qoray aan dhibcaba la raacin jirin oo qoraalka uun xarfihiisa loo qori jiray mar waxaa jirtay dib xarakadii in fatxadii kasradii iyo damadii iyo waxaas dib lagaga daray muhim weeyaan marka qaarkood inuu qofku kala arrimahan ogaado si uusan isugu khaldin marka wuxuu leeyahay khadkii qoraalkii iyo dhigaalkii magacyadu haddii uu isu eg yahay oo iswaafaqsan yahay واختلفت أي سكوكر الدوانيهين نطقا لهدي دواقي marka isku sibay u dhigan yihiin laakiin qaabkii loo dhahayay ayaa kala duwan kuwan kuwii hore maxay ahaayeen waa laba magac oo isku mid ah laga yaabaa labadoodii magac iyo labadoodii aabbo magacyadoodii iyo labadii awow magacyadoodii saddexdiiba inay isku mid ka yihiin aysan waxba ku kala duwanayn magac ahaan dhawaaq ahaan iyo qoraal ahaanba laakiin halkan qoraalkiibaa isku mid ah laakiin dhawaaqii baa kala duwan نوعا دواقه كلا الدنيا وحالي هذا المؤتلف والمختلف المؤتلف سيبا ميل بيسوقو إيمانا يعني سيبا ميل بيسوقو ويسوسو الدنمان لكن والمختلف كلا الدوانانتي وحكا إيمانا يسوقو خلاف سنهين دواقي قرال أهانتي والله يسو يمادين لكن وحكو كلا تكسنهين دواقي كوانا وحا يسوقو يمادين اسكاقمد نقدين مقعي لكن أشخاصتي أيا كلا دوان وإن اتفقت الأسماء حديث مقعيدي أيسكم من نقدان واختلفت الآباء أبياشي مقعيدو دين أي كلا دوانين لبدي مقع ورياشي باسكم مد لكن أبياشو دو مقعي كلا أو بالعكس أما لبدي آبا مقعيدو دي باسكم مد لكن لبدي وري مقعيدو دي أيا كلا دوان أو كلا قديسا نوع السيدان أو كلا meel isaga eg meelna ku kala duwan almutashaabih baa layihahdaa kii isku dheehmay ee isu ekaaday mutashaabiha ahaa
ayaa la yihahdaa. Wakada sidaasoo kale waa mutashaabih in waqaca dalika alittifaaqu haddii magicii itifaaqi iyo isku mid ahaanshihii hadduu dhaco magicii iyo wasmi labi magacii weriyaha iyo magacii aabbuhu hadday isku mid noqdaan laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin uu noqdo walikhtilaafu waxay ku kala duwan yihiin fi nisbati meesha loo nisbaynayo haddii labadii weriye magacyadoodii iyo labadoodii aabe magacyadooda ay isku mid noqdaan laakiin midna uu yahay reer basra midna uu yahay reer madiina nisbadii bay ku kala duwanaadeen nisbada waxa weeyaan meeshii ay kasoo jeedeen la raacinayo tusaale ahaan haddaan idhahdo xasan albasri waxaan nisbadiisu waa basra weeyaan saasoo looga jeedaa marka nisbadii haddii ay ku kala duwanaadaan oo aan taa ku kala soocno iyagina waxay noqonayaan mutashaabih wayatarakabu waxaa ka rakimaya waxaa ka dhalanaysa minhu noocan mutashaabiha iyo wa mima qablahu waxay ka horeeyeyba kuwa ka horeey anwaac noocyaa ka dhalanaya noocyadan ka dhalanaya waxay yihiin minhaa waxaa ka mida an yaxsula alitifaaqu isku mid ahaanshihii ama awil ishtibaahu isu ekaantii inay dhacdo oo ay isu eg yihiin ama ay iswaafaqsan yihiin ba isku mid noqdaan ilaa fi xarfin marka laga soo reebo hal xaraf aw xarfayn ama laba xaraf labadii magac waa isku mid ama way isshabahaan way isu eg yihiin marka laga reebo xaraf ama laba xaraf xaraf bay ku kala duwan yihiin ama laba xaraf bay ku kala duwan yihiin laakiin inta kale way ka siman yihiin aw bitaqdiimi watakhiir ama waxay ku kala duwan yihiin horumarin iyo dibdhigid magacyadii baa isdaba marsan midna magaciisi iyo magacii aabihii ka kale magacii aabihii iyo magaciisi baa isdaba marsan yihiin waxaa looga yaabaa in dadka qaar aysan garanayn inay u qaataan tii aan soo marnay maqluub inay u qaataan oo labadii magac markay saa isu dabamarsan yihiin in yidhahdo waryahani waa kii aad taqaanay magaciisu sida kale weeyaan qofa khalad geliyey hadduusan qofku ogeyn inay jiraan weriyaal magacyadooda ay saa yihiin khaladkaasoo kale ayaa gefkaasoo kale ayaa ka dhacaya wuxuu leeyahay noocyadan ha noqoto mutashaabiha iyagoo wixii ay magacyadii isu eg yihiin oo isshabahaan ayaa waxaa dhici karta xaraf iyo laba xaraf inay ku kala duwanaadaan sidoo kale waxaa dhici karta kala horumarin labadii magac magacii weriyaha iyo kii aabihii iyo kan kale magaciisi iyo kii aabihii in ay isdaba marsan yihiin sida awgeedna laysku khaldi karo la moodi karo in qof uu khalad meeshaas geliyey aw naxwi daalika ama wax taas lamid ah intan ayaynu insha allahu tacaala marka hore dur maraynaa inta aynan qaybta labaad aynan u gudbin marka almuttafiq iyo walmuftariq wuxuu sheekhu yidhi waxa weeyaan waa marka magacyadii ay isu eg yihiin ay ka siman yihiin sida tusaale ahaan laba qof axmed la yiraahdo laga yaabo aabayaashoodna in la yiraahdo labadaba cali axmed ibn cali iyo axmed ibn cali waa muttafiq iyo muftariq maxay muftariq u jeed magacyadii waa isku mid waa muttafiq way iswaafaqsan yihiin laakiin ashkhaastii baa kala duwan sababta loo keenay waxa weeyaan laba qof oo kala duwan in aan loo malaynin inay hal qof yihiin waxaan soo marnay muhmalkii tusaale ahaan imaam bukhaari markuu ka warinayay axmed leeyahay xadathana axmedkaas waxaa loo kala saari laayahay axmed ibnu saalix ba mise axmed ibnu ciisa labadaas ayuu noqon karaa mid sidoo kale marba wuxuu ka warinaya maxamed lama garanayo ku yahay wuxuu noqon karaa maxamed ibnu salaam wuxuu noqon karaa maxamed ibnu yaxya waa muhmalkii marka waxaa ka dhalanaya laba qof oo kala duwanaa in ay hal qof isugu soo ururaan oo halkaa qof kii uu labadaa ka ahaa aan la garanaynin halka muttafiqii iyo muftariqii ay yihiin laba qof oo kala duwan oo laakiin maadaama isku magac yihiin qofkii wuxuu u qaadanaya inay hal qof yihiin muhmalkiina axmedku ma axmed ibnu ciisa mise axmed ibnu saalix labuu noqday uu farcamay maxamed markuu leeyahay maxamed ibnu salaamba mise maxamed ibnu yaxya labuu noqday hal qofna bukhaari qofku u jeeda waa hal qof laakiin maadaama uusan sheegin oo uu muhmal ka dhigay laba qof ayuu midkood noqon karaa ka wuu farcamaya
halka muttafiq iyo muftariqi laba qof oo kala duwan maadaama isku magac noqdeen laysku khalday oo loo malayn karo inay yihiin hal qof. taasaa keenaysa in la kala saaro oo magacyo iyo erebixinno kala duwan loo sameeyo. marka si kooban, muttafiq iyo muftariq waa dad isku magac ah laakiin ashkhaas ahaan kala duwan. intaas isugu soo ururaysa. haddii aynu kutub laga qoray baa jira, waana dad aad u tiro badan weeyaan runtii. آه، tusaale ahaan alkhatiib albagdaadi wuxuu leeyahay kitaab ama hore uga soo hadalnay laamaha cilmu xadiidka qaybihiisa kala duwan. way yar tahay qayb aadan ka helaynin kitaab uu khatiib albagdaadi u qoray. waa sababta uu cilmigan dadka lafdhabarta u ah uu meel sare kaga jiro. kitaabkiisa almuttafiq walmuftariq, tusaale ahaan haddaan eegno, waxaa jira tusaale ahaan yaxya ibnu yaxya, 5 qof weriye oo waxaa jira yaxya ibnu yaxya la yidhaahdo. magaciisii iyo magacii aabihii waa isku mid. waxaa jira yaxya ibnu abi yaxya, iyaguna 5 kale ah. marka dadkaasoo dhan buu soo ururinayaa magacyadoodii, meelahay kala joogeen, degaankoodii, goortay dhasheen, goortay geeriyoodeen, yaa wax ka wariya. wax kasta oo lagu kala saari karo oo lagu kala garan karo ayay culimmadu ay diiwaan geliyeen si wariyaasha loo kala barto aan la isugu khaldin. tusaale ahaan halkan waxaan ku arkaynaa waxaa jira yaxya ibnu saciid, waa 16 16 16 wariye oo yaxya ibnu saciid la yidhahdo ayaa jira. waxay u baahan yihiin in la kala saaro, haddii kale dadku waxay u qaadanayaan 16kaasiba hal qof in ay yihiin. qofkii aan garanayn inuu ku khaldami karaa kaas. sidoo kale waxaa jira marmarka qaarkood kunyadii abuwaaqidin laythi labo la yidhaahdaa kala jira. kunyadiiba way wadaagaan, nisbadii laythigiina way wada wadaagaan. abu cimraan aljawni, abubakar ibn cayaash, 3 abubakar ibn cayaash baa jira. marka dadka inta dhammaantood wadarta kitaabkan uu sheekhu kusoo diiwaan geliyo waxa weeyaan 1571 weriye ayuu keenay. 1500 qof oo sidan magacyadoodu isugu eg yihiin oo la kala saarayo. hawl yar ma aha. meeshu u noqonaya ee macluumaadkan laga keenayo waxa weeyaan kutub waxaa jira lahaa kutubu dabaqaat. dabaqaadka waxay yihiin insha allah way noo soo socdaan. kutubu dabaqaat waxa weeyaan wariyaashii iyo macluumaadkoodii iyo wixii taariikh laga hayay ayaa ku kaydsan. sidoo kale kutubtii taariikhda in loo noqdo dhacdooyinkii qofkii kastoo meelaha lagu xuso warkiisa lagu sheego in halkaas laga soo qaado. cilmu xadiidkii loogu baahdo in taariikhdii loo noqdo. waxaa kaloo jira kutubtii siirada in laga raadiyo, kutub ansaab, kutubtii nasabka laga qoray. saa ognahay inagii carabta waxyaalahan aadka u qadarino u tixgelino waxaa ka mid a qabiilka iyo nasabka iyo abtirka. kutub laga qoray baa jira qabiilooyinka iyo sida u kala baxaan iyo yaa ciddana iyo yaa ciddaas xaggee bay degaan. waxaas oo dhan macluumaadka lagu keydiyo. si dadkan loo kala saaro leedo hebel halkaasuu joogay, waa reer hebel, intaasay walaal ahaayeen, intaasaa la dhalatay, halkaasuu degay, halkaasuu u safray. wixii oo dhan in la kaydiyo si dadkii loo kala garto oo xadiidkii aqoontaas xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu ilaaliyo, lagu dhowro. dadaal weyn ayaa culimmada ka galay, ilaahay khayr badan ka siiya. marka taas waa muttafiq iyo almuftariq. waxaa ku xiga almu'talif iyo walmukhtalif. sheekh wuxuu nagu yidhi haddii qoraalkii magacyadoodu wain ittafaqat ilasmaa'u khatan, qoraal ahaan haddii ay isku mid kan noqdaan, laakiin nutqigii iyo dhihiddii ay ku kala duwanaadaan, waxaa la yihahdaa noocan almu'talif walmukhtalif. meel bay isaga soo dunmayaan oo isaga imanayaan, meelna way ku kala duwan yihiin. marka tusaale ahaan haddii aan xarakada ka saarno, haddii aynan xarakaynin sida caadi ahaan af carabiga loo qoraba, asiid iyo usayd isku si bay u qoran yihiin. waxa kaliya lagu kala garanaya waxa weeyaan dhawaaqoodii baa kala duwan. marar badan xitaa dadkan carabiga aqooninba inagoo kaleba iska badaa, laakiin xitaa dad badan oo culimadii xadiidka ka mid a ama dulaabtii xadiidka dadkii aqoonta xadiidka raadinaya ah ayaa marar badan dhibaato uga imanaysaa ku dhawaaqidda ereyadan qaar haddii aan xarakadii la saarin. waayo waxay dad fara badan xibbaan, xabbaan, salaam, salaam, asiid, usayd,
sida u kala saaraysa iyo qaabka wixii u dhihi lahayd haddii aadan aqoon badan u lahayn inaad ku cebowdaa laga yaaba in wixii qofku hadduusan waxaasoo dhan baranin isagoo xadiidkii akhrinaya waxaa laga yaabaa meel asiid ahayd inuu usayd yiraahdo meel usayd ahayd asiid inuu yiraahdo iyo wax lamida halkaasna ay dhibaato tahay qofan dee wixiiba akhrin karin uu ku ceeboobi karo marka in waxay culimmadu dadaal badan gelin jireen oo kutub ka qori jireen kutub laga qoray baa jira kan mu'talif iyo mukhtalifka isaguna oo diiwaan geliya magacyada isu eg sida asiid iyo usayd xibaan xabaan iyo wixii lamida caqiil cuqayl salaam salaam haddii waxyaalaha yaabka waxaa ka xitaa inta magac ee sidan ku timaada xitaa culimmadu way ku kala sheegeen intaas weeyaan hebel waa hebel magacaasuu leeyahay halkaasuu joogay nasabkiisu waa sidaas wixii o dhan bay ay ku sheegayaan si ay u kala socmaan oo aan la isugu khaldin laakiin qofku inuu barto waxaa ka gelaya wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo dadaal badan inuu geliyo wax si fudud lagu baran kara maaha waana ta dadka ay kala soocaysa ee darajooyin iyo dabaqaad u yeelaysa qaarna ka dhigaysa culimo magac iyo maqaam sare leh qaarna dad aan jirin oo wixiiba kala garanaynin marka taasna waa taas ka muttafiq iyo walmuftariq mu'talif iyo mukhtalif waxaa inoogu xiga uu sheekhu inoo sheegay almutashaabih labadii isshabahayey isku qoraalkii iyo kala isku dhigiddii iyo kala dhihiddii baan soo marnay waxaan kaloo soo marnay labadii qof ee magaca isku midka ahaa watay laakiin ashkhaastooda ay kala duwanayd oo ahayd in la kala saaro kanna wuu u soo dhow yahay weli wuxuu aad ugu soo dhow yahay dhankii mu'talifki iyo mukhtalifki wuxuu leeyahay labadii magac haddii ay isku qaab u qormayaan haddii aan hayno laba magac oo isku si u qormaya ama isku mid ah laakiin aabbayaashii baa kala duwan labadii magacee hore hadda tusaale ahaan waxaan haynaa maxamed iyo maxamed maxamed iyo maxamed waa isku mid labadii magac waxaase kala duwan labadii aabe halkan ku kala duwan labada aabe magacyadooda markaan eegno waa mu'talif iyo mukhtalif waayo caqiil iyo cuqayl bay kala yihiin labada magac aabbayaashu aan soo yara dhaweeyo marka waa maxamed ibnu caqiil iyo maxamed ibnu cuqayl caqiil iyo cuqayl iyagu waa mu'talif iyo mukhtalif laakiin wariyaasha maxamed ibnu caqiil iyo maxamed ibnu cuqayl marka la eego waa laba magac oo isshabaha laakiin kala duwan way isu dhow yihiin laakiin way kala duwan yihiin nudqigii magacyada aabbayaashood ayaa kala duwan qaabkii loogu dhawaaqayay sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin oo dadka mutashaabiha ah waxyaalaha aan ku kala saarayno aan ku kala garanayno waxa weeyaan haddii aad aragtid magacii oo qoran oo caqiil iyo cuqayl aanaysan xaraka lahayn laakiin haddii lahdo saas uu qoran yahay waxaana daba socota naysaburi waxaan leenahay naysaburi waxaa ahaa maxamed ibnu caqiil oo caynku kor dhigan yahay faryaabina waxaa ah maxamed ibnu cuqayl oo caynka uu godan yahay naysabur waa meel ka mida iiraan hadda faryaabna waa meel hadda ka mida afghanistan marka maxamed ibnu caqiil iyo maxamed ibnu cuqayl oo mutashaabiha oo shabaha waxa aan ku kala soocayno aan ku kala garanayno inoo fududaynaya waxa weeyaan marka dhawaaqa laga yimaado waa nisbadooda iyo deegaanka ay ka yimaadeen naysaburi iyo faryaabi halkaasaan ku kala soocayna waa mid sidoo kale waxyaalaha aan ku kala sooci karna waxaa ka mid ah yay wax ka qaateen yay wax ka barteen haddaan xusuusano riwaayatul aqraankii iyo qaybihii hore aan soo marnay waxaan xitaa muhmalkii markaan ka hadlayna waxaan nidhi qaabka aan ku kala sooci karno waxaa ka mid ah da'doodii dabaqadoodii iyo ciddii ay wax ka qaateen qofka sheekh labada sheekh keebuu wakti badan la qaatay uu caan ku ahaa wax ka warintiisa iyo wixii lamida ayaan ku kala soocayna marka hadda shurayx iyo surayj qoraal ahaan waa isku mid haddii dhibcaha iyo waxaas haddii laga tago labaduba isku sibay u qormayaan marka shiinkii iyo siinkii isku sibay u qormayaan jiimkii iyo xadiina dhibicdaasunbaa kala saaraysa shurayx iyo surayj labadii aabbana waa isku magac shurayx ibnu nucmaan iyo surayj ibnu nucmaan dhigaal ahaan labadooda magac waa isku mid labadii aabbana waa isku mid waxa aan ku kala saarayno haddii aan xaraka la gelinin meeshii waxa weeyaan waxaan leenahay shurayx
oo ahaa taabici oo wax ka wariya cali ibn abi aalib. ka warinta cali ibn abi aalib wax ka warinayo iyo inuu taabici ahaa waxa ay ka soocaysaa surayj ibnu nucmaan oo ahaa sheekha imaam albukhaari. sheekh imaam albukhaari surayj ibnu nucmaan iyo shurayx ibnu nucmaan labadan qodob ayaa inoo fududayn inaan kala saarno. midna waa sheekh imaam bukhaari, midna waa taabici wax ka wariya cali ibn abi aalib radia allahu canhu. marka waa kala dabaqad, waa kala fac, waa kala lod, xilli kala duwan weeyaan. saasaan u kala soocayna iyagan. waa dadka isu eg mutashaabiha ah weeyaan. marka maxamed ibnu caqiil, maxamed ibnu cuqayl, waxaan nidhi caqiil iyo cuqayl iyagu waa mukhtalif iyo mukhtalif, waayo waa isku qoraal laakiin dhawaaqi bay ku kala duwan yihiin. waxaan ku kala soocayna, aan ku kala garanaya nisbadoodii. midna waa naysaburi, naysabur buu ka yimid. midna waa faryaabi, faryaab buu ka yimid oo afghanistan ah. midna waa iiraan. marka hadda degaan ahaan shurayx ibnu nucmaan taabici wax ka wariya cali ibn abi aalib. surayj ibnu nucmaanna waa sheekhi imaam albukhaari. iyaguna saasaan ku kala soocayna, ay ku kala duwanaan. iyagana kutub laga qoray ayaa jira oo waxaa ka mid a kitaab uu qoray khatiib albaghdadi. soo sheegnay kutub laamaha oo dhan inuu leeyahay kutub uu wax ka qoray. kitaab uu ka qoray waxaa jira talkhiis almutashaabih. intaa markuu kasoo tegay sheekhu wuxuu inagu yiri raximah allahu tacaala wayatarakabu minhu wa mima qablahu anwaac minha an yaxsula alitifaaqu aw alishtibaah ila fi xarfin aw xarfayn. marka qaar waxaa dhacda in ay magacyadu aad isugu eg yihiin marka laga reebo xaraf iyo laba xaraf. xaraf iyo laba xaraf unbay ku kala duwan yihiin. mutashaabihii magacyadu xaraf iyo laba xaraf unbay ay ku kala duwan yihiin, ama waxay ku kala duwan yihiin taqdiim iyo ta'khiir, istaba marsan yihiin aw naxwi daalika iyo wax la mid ah. marka kuwaas ayuu tusaalayaal inaga siinayaa. qaybtana sharaxii sheekha nushatu nadarka ayaan kasoo qaaday si aan magacyada u eegno. marka wuxuu leeyahy tusaalayaal waxa weeyaan maxamed ibnu sinaan iyo maxamed ibnu sayaar. nuunka iyo ya-da waxa lagu kala saaraya waa dhibcihii. dhibcihii haddii laga tago waxba kuma kala socno. marka waxay ku kala tegsan yihiin un waa xarafka nuunka u dambeeya iyo ra'daas ayay ku kala duwanaan dhigaal ahaan marka la eego. intaasay ku kala duwanaanayaan. taasa waxay keenaysaa kutubta markaad akhrinayso waxaad arkaysaa siduu halkan inoo samaynayo. wuxuu leeyahy bikasri lmuhmalati wanuunayni baynahuma alif. kan muhmal marka laleeyahay waa xuruufta aan dhibcaha lahayn. marka sida markuu u dhigan yahay waxa uu leeyahay waa muhmala, waa shiinkii baa laga reebaya. shiinku maadaama uu 3 dhibcood leeyahay, siinkuna uusan dhibco lahayn, halkii aan lahayn alif waxmale dii weeyaan. marka siinka aan waxba lahayn iyo 2 nuun oo uu u dhexeeyo alif, sidaa marka la yiraahdo waa la garanaya waxa laga hadlaya inuu yahay sinaan. waxaana hum jamaaca, waana koox. maxamed ibnu sinaan waa koox buu leeyahay. haddana waxaa ka mid a alcawaqi bifatxi alcayn. wuu raacinaya xarakadii buu raacinaya maadaama aan saa loo qori jirin markii kutubta la qorayo wax. wuxuu leeyahay si aan loo khaldamin, wuxuu leeyahay bifatxi alcayn, caynkuu kor dhigan yahay, walwaaw, waawguna uu kor dhigan yahay, thumma alqaaf, kadibna qaafkii baa ku xig. sheikhu lbukhaari wa maxamed ibnu sayaar isagana sidee baan ku garanaynaa qaabka loo dhahayo bifatxi almuhmala, siinkuu kor dhigan yahay, wa tashdiid ilyaa ataxtaaniya, ya-da hoosta dhibcaha kulena shad baa saaran. wa bacda alalifi ra, alifkan waxaa ka dambeeya ra waa ka dambaysa, si aan loogu khaldin kan kale ee nuunku uu u dambeeyo. marka kutubta markaad akhrinayna xadiiska marar badan waan ku arkayna iyagoo inoo sheegaya, way qorayaan xarakadii uu lahaa iyo xarfuhu keebaan dhibcale iyo keebaan dhibca lahayn, si loo kala garto oo aan loogu khaldamin. midka kalena waxaa tusaale kale waxa weeyaan maxamed ibnu xunayn iyo maxamed ibnu jubayr. xunayn iyo jubayr mutashaabih bay noqonayaan, waa laisku khaldi karaa in la kala ogaado. marka la qoro waxaa leeyahay bidammi lmuhmala, xada muhmalada aan dhibicda lahayn damma saaran, wa nuunayni iyo 2 nuunna meesha way ku jiraan. aluulaa ta hore maftuuxatun, fatxay leedahay, way kor dhigan tahay, baynahumaa yaaun taxtaaniya, ya 2 dhibcood hoos ku leh baa u dhaxaysa 2 nuun. ta horena fatxa saaran. marka halkii
si aadan xitaa haddaad xarfihii garan lahayd ad xunayn aad u tiraahdid aadan dhawaaq kale aadan u saarin yagiina waa laguu sheegayaa oo culimmadu taasna way kasii taxadareen. jubayrkiina wuxuu leeyahay biljiim bacdahaa muwaxadatun, jiim baa lagu akhrinaya waxaana ka dambeeya ba hal dhibic leh. kan ku xigana wuxuu leeyahay tusaale kalena mucarif ibnu waasil iyo mutarif ibnu waasil, waxaa u dhexeeya midna waa mucarif cayn, midna waa mutarif waa ta. marka wuxuu leeyahay mutarif ibnu waasil waa bita, isaga ta baa lagu akhrinaya badal cayn, booskii caynka ahaa ee mucarif ahaa isaga ta baa lagu akhrinaya. axmed ibnu lxusein iyo axyad ibnu xusein, haddii qofku ku dhawaaqayo waad fahmaysaa wax isgeli kara isgelaya maaha, laakiin maadaama wixii uu qoraal yahay qoraalkii wuu isu dhow yahay. qofka dadka fartooda way kala duwan tahay, laga yaaba qof miimkaasba inuu si kale u qoro oo fartiisi la fahmi waayo. hadda waan aragnaa dadka qaar fartooda si wax u qoraan in xarfiya ay isdhex galaan oo la garan waayo waxan af soomaali ahaantii baan ka hadlay maca waa mise waa iyo wax lamida, inay dadka qaar isku khaldaan xitaa marka qaarkood. marka wuxuu leeyahay laakiin badala almiim meeshii axmed ahayde miimka ku jiray yaa-un taxtaaniya, ya laba dhibcood leh ayaa ku jirta. marka axmed iyo axyad taas ayaa isagana lagu kala saaraya. wahuwa shaykhun bukhaariyun yarwi canhu cabdullahi bn maxamed albikandi. marka saas u aragno xafs ibnu maysara iyo jacfar ibnu maysara, labadii aaba waa isku magac. xafs iyo jacfarna dhowr xaraf baa u dhexeeya. saasoo kale ayuu sheekhu wuxuu leeyahay mutashaabih waxaa soo geli kara qaybo hal xaraf iyo laba xaraf magacyada ay ku kala duwan yihiin, ay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado oo loo fahmo si aan laysugu khaldin. waxaa kaloo jirta buu yidhi in taqdiim iyo ta'khiir u galo, in magacyadii ay istaba marsan yihiin. tusaale ahaan alaswad ibnu yaziid iyo yaziid ibnu alaswad, qofka aan garanaynin wuxuu u arki karaa labadan magac inay hal qof yihiin laakiin wax isdaba mareen, waana laba qof oo kala duwan. alaswad ibnu yaziid iyo yaziid ibnu alaswad. waxaa kaloo lamida buu leeyahay cabdullaahi ibnu yaziid, yaziid ibnu cabdillaah. marka waa taqdiimkii iyo ta'khiirkii waa kan. halkan cabdillaahi baa horeeya, halkanna yaziidkii baa horeeya, halkan aswad baa horeeya, halkanna yaziidkii baa horeeya. marka labadii magacii aabbaha iyo magacii wiilku way isdaba marsan yihiin, labadii qof ee kala duwanaa. taas waxay keenaysaa in dadkii ay u arki karaan inuu maqluub yahay, laakiin ma aha ee labadu magacba saasay ayay ku jiraan. intaasna waxaan kaga baxaynaa magacyada iyo qaabka isugu ekaanayaan iyo sida ay u tahay in loo barto. kumanaankaas qof ee laga hadlayo weeyaan waxa dabagalka lagu samaynayo marka xadiid la xukumayo, xadiidkani ama waa saxiix ama waa daciif ama waa xasan iyo wixii lamida. marka qof waxaas ka bixi kara oo aqoonta dadkaas oo dhan kala garan kara ayaa loo baahan yahay inuu cilmigan oo kale u ka hadlo. laakiin qofaan waxbaba uga bilownayn inuu yihahdo xadiidka muxuu sheegaya, waxaan yaa isku hadlayn kara, yaa waxaan garanaya inuu run iyo been wuxuu yahay, bukhaari muxuu yahay, sidaas ugu kalsoonaan karnaa. qof waxaasoo kale nacnacda ku hadlaya hadalkiisu wax kasoo qaad male, waa qof wuxuusan garanayn ka hadlaya. marka in yihahdo naga aamus unbuu mudan yahay. waayahay qaybteena ugu xigta markaa gunaanadkii kitaabka ayaynu halkan ka bilaabaynaa. intan iyo inta casharka ku xigta casharka inoogu xiga kanba insha allah tacaala gunaanadkii ayay noqonaya. marka sheekh wuxuu leeyahay khaatima gunaanad. wa min almuhimi waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a macrifatu in la garto oo la ogaado la barto dabaqaati ruwaad, wariyayaasha dabaqadahooda in la barto ayaa muhiima. wa mawaaliidihim iyo xilliyadii ay dhasheen, dhalashadoodii in la barto ayaa iyaduna muhiima. wa wafayaatihim geeridoodii, markii ay geeriyoodeen alla oobsaday iyadana in la barto ayaa muhiim ah. wa buldaanihim degaanadoodii iyo meelihii ay kasoo jeedeen, meelihii ay joogeen in la barto ayaa iyaduna muhiim ah. wa axwaalihim xaaladahoodii in la ogaadana waa muhiim, xaaladihii qiimaynta ahaa in la bartana waa muhiim ayuu leeyahay sheekhu. tacdiilan haddii ay tahay
cadli ku sheegid tacdiilid in la yahay qofkaasi waa cadli xaaladaas in la ogaado waa muhiim wa tajriixan in la jarxiyey oo la dhaleeceeyey oo wax laga sheegay iyada in la ogaadana waa muhiim wa jahaalatan in aan cadlinimo iyo jarxin midna loo haynin oo qofkaasi uu majhuul yahay iyada in la ogaadana waa muhiim marka qofkaas hadduu ahaa qof cadli ah oo cadlinimadiisi la sheegay waa inaan ogaano hadduu yahay qof majruuxa oo la duray oo wax laga sheegay oo la dhaleeceeyey oo iin laysna waa inaan ogaano hadduu yahay qof aan labada midna loo hayninba isagana waa inaan ogaano marka waan soo marnay dad cadli ah waynu soo marnay dad majruuxiin ah oo beenawaasiin ah ama xadiithii alifan jiray been ah ama maxay ahayday xifdigoodu xumaa iyo wixii la mid ah ama matruuk ah waynu soo tusaalayaal waan soo marnay jahaalatan kuwa aan la garanaynin ma cadliba mise ma aha iyagana waan soo aragnay tusaale la mid a marka intiibuu inoo soo dulmaraya aynu soo qaadanayba intii hore aan ka hadlaynay maqbuulka iyo marduudka axaadiista sababta ay arrintani muhiimka u tahay waxaynu soo marnay waxaynu nidhi xadiidka marduudka waxaa ka dhigaya laba waxba ka dhigi kara labada waxa marduudka ka dhigaya waxa weeyaan ima an yakuuna lisaqtin aw tacnin ama in isnaadkiisii kala go-an yahay oo cidi ka maqan tahay ama in cidda weriyaha soo werinaya la dacniyey oo wax laga sheegay oo qof la dhaleeceeyo oo wax laga sheegay inuu yahay labadaasaa keeni karta ka isnaadka hadda kama hadlayno waxaan ka hadlayna weriyihii dacnigii dacnigaasna sheekhu wuxuu inoo soo sheegay in 10 wax ay soo gelayaan dacnigii 10kaas 5 ka mid ay xifdigii iyo qaabkii uu warka u qabtay ay la xidhiidho 5 ka midana ay la xidhiidhay maxay hayday cadlinimadiisa yani beentii fisqinimadii bidcadii inaan la garanayninba iyo wixii la mid ah warka la qaadanaya waxaan idhi qofka soo warinaya waa inuu yahay cadlun daabit qof cadli ah oo warkii uu qabto sugaya oo aan wixii kale ilaaweynin marka tan shuruuddan si loo buuxiyo waxay keenaysay in wariyayaashii la ogaado goormay dhasheen goormay dhinteen xagee bay joogeen ma cadli bay ahaayeen ma majruux bay ahaayeen ma qof majhuulay ahaayeen waxaas marka la og yahay uunbaa xadiidku sanadkiisu ma xiriirsan yahay la ogaan karaa qofkani qof wax laga qaadan karo iyo ma yahay mise ma aha waa inaad warkan markaad haysid ayaad go-aankaas gaari kartaa marka sababtaas u leeyahay arrintani waa muhiim in la ogaado dabaqaduna waxa weeyaan marka dabaqadu waxa weeyaan dad iskulood ah isku fac ah aan soo marnay waxaan nidhi dadka iskuloodka waxaan soo marnay riwaayat alaqraan waxaan soo marnay akaabir can alasaaqir assaabiq wallaaxiq arrimahaasoo dhan waxa lagu ogaanaya waa inaan ogaano dadkan goormay dhasheen goormay dhinteen xagee bay tageen qofkan wax ka warinaya ma la kulmi karay haddii uusan la kulmin waxna ka warinayo qaabkeebuu uga warinaya qofkan ma mudalis ba mise mudalis maaha mudalisnimadaas iyo mursalka qarsoon iyo sanadku inuu kala go-an yahay waxaasoo dhan waxaan ku ogaanaynaa taariikhda inaan hayno hadduu qofku inuu yahay hebel baan ka wariyey hebel goormaad ka warisay oo uu inoo sheego taariikh uu qofkaasi uusan nooleynba qofkaasoo dhintay kabacdi buu leeyahy waxbaan ka wariyey waxyaalaha lagu ogaan karo beenta ayay ka mid tahay marka taas ayaa waxay keenaysaa in loo baahdo in la ogaado taariikhdii si loo kala saaro warkii jira iyo warkii aan jirin waxaan soo marnay tusaale in xadiid munqatic ahaa mujaahid uu warinayey sheekh wuxuu yidhi liana mujaahid lam yudrik cumar mujaahid cumar ibn khataab radi allahu canhu lama uusan kulmin ahmiyadda taariikhda ay leedahay halkaa waxaan ku ogaanaynaa sanadkaas inuu kala go-an yahay waayo cumar wuxuu geeriyooday 23 hijiradii mujaahidna wuxuu dhashay 21 isagoo intaas la eg cumar waxba kama uusan warin karin sida awgeed dhalashadaas iyo geeridaas taariikhda aan ogaanay aan ku ogaanaynaa warkan inuu munqatic yahay ee uusan xiriirsanayn mursalkiina taasoo kale waxaan ku ogaanaynaa taariikhdii inaan dib ugu noqono marka waxaanu ka soo hadlaynay taariikhda iyo ahmiyadda ay leedahay waxaan nidhi waxaa loo baahan yahay in la ogaado dabaqadaha culimada iyo weriyaasha xadiidka dabaqadaha ay kala leeyihiin si aan u ogaano yaa isku fac ahaa yaa is arki karay yaa wax kala warin karay aan u ogaano meeshii saqdi ku yimaado ama inqitaac isnaadkii ku yimaado iyo wixii lamid ah sidoo kale
dadkan magacyadooda ay isu eg yihiin mararka qaarkood si aan u kala soocno haddii aan dabaqada ay ku jiraan aan ogaano waa in wax badan ba inoo fududaynaysaa. waxyaalo badan baan ku inoogu furfurmaya halkaas. sheekh dabaqadu waxa weeyaan waa dad isku lood isku fac ah marka loo eego da ahaantoodii iyo culimmada wax ka qaateen. kutubta laga qorayna siyaabo kala duwan bay u qoran yihiin. hadda tusaale ahaan qaarkood saxaabada oo dhan hal dabaqad bay ka dhigayaan, halka qaar kale ay leeyihiin saxaabadu isku dabaqad maaha. qaar yaryaraa baa jira oo mar dambe dhashay, eh, sida cabdullahi bin cabaas oo kale, cabdullahi bin cumar, maadaama ay ka yar yihiin kuwii hore abubakar iyo cumar iyo dabaqada hore saxaabadii waaweynaa ah, waa inaan kala socno. qaar waxay ku kala saarayaan yaa beder joogay, waxay leeyihiin sulxu xudaybiya, dhacdooyinkii waaweynaa bay ku kala saarayaan dadkii. saas oo kale qaar waxay leeyihin taabiciinta sida saxaabada ay hal dabaqad uga dhigeen, waxay leeyihin taabiciintuna waa kuwii saxaabada la kulmay, iyaguna waa hal dabaqad iyo wixii lamida. qaabkan dabaqadaha ee dadka taariikhdooda loo qorayana waa qaab xitaa aan cilmiga xadiidka keliya ku joogin. waxaa jira dabaqaat ulfuqahaa, culimadii fuqahadii fiqiga iyo dabaqadahoodii siday u kala horeeyeen iyo siday wax u kala qaateen ba iyagana lagaga hadlayay taariikhdoodii. waxaa jira kuwo gaar ahoo xitaa madaahibta dabaqaat shaaficiya, culimada shaaficiyada iyo taariikhdoodii mid walba in imaamu shaafici laga soo bilaabo ay saa ku soconayaan iyo wixii lamida. waxaa jira dabaqaat atibaa, dhakhaatiirtii dabaqadahoodii iyo taariikhdoodii lagaga hadlo. waxaa jira kuwii qudaadii iyo garsoorayaashii muslimiinta. waxaa jira xitaa shucaradii iyo kuwii dadkii gebyi jiray, dabaqaatu shucaraa. waxay ahayd qaab ka mid ah qaababka taarikh nololeedka dadka loo qoro. cidda arrimahan dadka ugu horeysay waxaan u bilowday ahmiyadda xitaa taariikhda in ahmiyaddan weyn la geliye keentay waxay ahayn culimadii xadiidka, maadaama xadiidkii uu u baahan yahay waxaan oo dhan. iyaga waxaan oo dhan howlahan intay galeen diyaariyey, dadka kalena ay kaga sii daydeen oo ay isticmaaleen. marka laga eego thaqaafadda iyo maxay ahayde aqoonta iyo siday uga farcantay aqoontii culimada xadiidka, wax aad u baahan in runtii aad loo daraaseeyo la barto. waayo dadaal weyn oo culimada xadiidka bixiyeen ayaa dadkii kale ee yimid ay wax badan ku dhiseen. culimada xadiid xitaa kutubtii tafsiirka hore markaad eegtid qaabka ay tafsiirka u qorayaan, qaabkii kutubta xadiidka bay isticmaalayaan. waayo xadiidka wuxuu ahaa waxyaalihii ugu horeeyey dadaal badan la geliyey si fiican loo diiwaan geliyey. intaa dabaqadaha markaan kaga tagno waxaynu soo tilmaanay in dacnigii iyo weriyihii wax laga sheegayey ay ku imanaya 10 wax. waan niri 5 waxay la xidhiidhaa qaabkii dabdigiisa iyo qaabka uu warkaas u sugay, cadlun daabit baynu niri. qaarna cadlinimadiisa iyo in qofkan war laga qaadan karo lagu kalsoonaan karo ayay la xidhiidhaa. hadda been inuu sheegay ama lagu tuhmay ama uu faasiq yahay ama bidco, intaas waxay inoo ama inaan laba garanaynin qofuu yahay. qofka cadlinimadiisa bay la xidhiidhaa, kalsoonidii lagu qabayey. qofkani warkii si sugan oo la aqbali kara ma u soo wariyeyna waxaa la xidhiidhaa qofkaasi warkaas sidii uu u kaydiyey ee u soo gudbiyey. marka hadduu khalad badan yahay, hadduu qof iska dhoohan oo waxba kala garanayn uu yahay, haddii uu wax ismoodsiinayo gafaf saasi ka dhacayaan, hadduu dadkii kala khilaafayo, haddii xifdigiisa uu liito, waxyaalahaasna iyaguna waa gaar. waxaynu kaloo ka soo hadalnay in aysan kuwan isku wada darajo ahayn. qof been nabiga sal alla alay slam ka sheegaya oo xadiis been abuura samaynaya, oo xadiis been mawduuca samaynaya la yirahdo wadaac, iyo qof xifdigiisu liito ama laga yaabo marka hore inuu fiicnaayo da awgeed markii dambe isku darsamay wax kale ilaaway, isku heer maaha. sababtaasu midna kow u yahay waxa ugu daran ee qofka lagu aadeeyo, midna uu yahay waxa ugu sahlan ee qofkaas lagu dhaliili karo. waxyaalahaas aynu ka hadlayno waxay soo gelayaan qayb xadiidka ka mid oo la yihahdo aljarx watacdiil. inagu yiri waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a xaaladii wariyayaasha inaan ogaano, haddii ay tahay tacdiilan iyo haddii ay tahay tajriixan iyo haddii ay tahay jahaalo inaan la garanayninba qofkaasi wuxuu yahay. marka arrimahaas jarxi iyo tacdiilka ayaa wuxuu kale leeyahay maraatib iyo heerar kala duwan. sida awgeed sheekhu wuxuu ina leeyahay qaybta xigta 10 waa maraatib aljarxi. waxyaalaha muhiimka ee raba in la ogaado waxaa ka mid a
maraatibta iyo heerarka jarxinta. qofkaas in la dhaleeceeyo wax laga sheego oo la duro maraatibta ay kala leedahay inaan ogaano ayaa muhiima. aan ku xidhaynaa wa min almuhimi ayaynu ku xidhaynaa. wa maraatib aljarxi ayaa iyaduna muhiim ah. wa aswa'uhaa waxaana ugu xun oo ugu daran alwasfu in qofka lagu tilmaamo wax leh miisaanka biafcal wax wasnigan ku yimaada sida afcal waa wasnigii ay ereygu ku imanaya sida kaakdab afcal buu ku imanaya akdab annaas qofka dadka ugu beenta badan qofka haddii lagu tilmaamo qofkaas taasa ugu daran haddii qofkaasi waa qofka dadka ugu been badan ama la yihahdo qofkaasi waa dajaal. dajaal dajaal magacu asalkiisa hore meesha wuxuu ka imanaya waa been sheegidii weyaan. qof dajaala weyaan waa wadaac xadiisyadu alifaa waxayna tilmaamaysaa badnaan leeyahay wadaac iyo dajaal wixii oo badnaan bay inoo tilmaamaysaa. kadaab kadaab waa qof been badan markaanu leenahay kadaab qofkaas waa qof been badan. wadaac waa qof wadcin badan xadiisyada uu alifaya ayaa badan. dajaal kuwaasa ugu daran buu leeyahay. wa ashaluhaa kuwa ugu sahlan ee ugu fududna waxa weeyaan layinun qofka in la yihahdo qofkaasi waa layin qof jilicsan yani qof qawi ah oo warkiisu uu awood leeyahay ma aha wax iska taag daran weeyaan warkuu soo warinayo. aw sayi'u lxifd ama xifdigiisa ayaa xun. aw fiihi adnaa maqaal qofka waxbaa laga sheegay far baa ku godan qofkaas bay u dhigantaa. marka intaas waa wuxuu inooga tilmaamay dhowr ayuu inooga tilmaamay maraatibtii kala duwan kuwii ugu darnaa iyo kuwii ugu sahlanaa ayuu inoo sheegay. intii dhexda ku jirtayna qaar baan isla arki doona insha allah tacaala. marka maraatibtan culimadu markii wax ka qorayeen waxay samaynayaan raadraac inay ku sameeyaan culimmadu waxyaalihii ereyadii ay isticmaalayeen. bilowgii baa la aadaya erey kasta oo qof lagu dhaliilay ayay meeshay ku arkaanba way diiwaan gelinayaan kabacdina siday u kala daran yihiin loo isticmaalayay ayay qorayaan. waxaa imanaysa culimmadii hore diiwaan gelisay kuwo dambe oo ka yimaaday inay ku daraan wax ay kuwii hore ka tageen oo aysan helin kuwii kasii dambeeyeen ayaguna wax kusii daraan ilaa ugu dambeyn hadda ibnu xajar iyo ardaydiisii inay tiradan ay noqotay 6 iyo 6 12 markaa 6 darajo oo ah dhankii jarxiga iyo 6 darajo oo ah dhankii tacdiilka ah. wa maraatib الtacdiil waxaa iyaguna muhima inaan ogaano heerarka tacdiilinta iyo qofkan in cadlinimo lagu sheego. wa arfacuhaa waxaana ugu sareeya alwasfu in lagu tilmaamo biafcal sidii kii horeo kale haddaan qofka waxa ugu daran afcal markaan isticmaalno akdab markaan yahno kanna waxa weeyaan afcal markaan waxaan leenahay awthaq marka waa isku wasni weeyaan. awthaq iyo akdab waa isku wasni weeyaan labadaas midna ka ugu daran ee qof lagu dhaliilo yahay midna ka ugu fiican ee qof lagu ammaano u yahay. kainaan qofkaasi waa awthaqu nnaas qofka dadka ugu thiqaysan weeyaan. ثم waxaa ku xiga heerkaas oo ka hooseeya maa ta'akkada bisifatin aw sifatain wixii lagu xoojiyo hal tilmaan ama laba tilmaamood. marka halkii aan hal thiqa aan odhan lahayn waxaan leenahay thiqatun thiqa laba jeer baan kusoo celcelinayna qofkaasi waa thiqatun thiqa markaan idhaahno way ka awood badan tahay thiqa keliya inaan idhaahno. sidoo kale haddii aanu idhaahno intaan thiqa laba jeer kusoo celin lahayn halkiis ama marka qaarkood culimadu 6 jeer 5 jeer inay ku soo celiyaan qof markay ammaanayaan hal erey thiqa oo kale. ama wuxuu dhigaa thiqatun xaafid waa ninka qofkaasi waa thiqa waa xaafid ama waa thiqatun thabt iyo ereyo kale oo la mid ah. kuwaasa iyaguna heer kale ah waxaana ugu hooseeya buu leeyahay heerarkan wa adnaaha ugu hooseeya maa ashcara bilqurbi wixii ku dareensiinaya inay u dhow yihiin من أسهل التجريح. مراتب التجريح كودا ugu sahlan wax u dhow qofkaas in lagu yiraahdo. marka haddaan u fiirsano waa wax way xiriirsan tahay waxa lagu dhaliilaya qofka iyo waxa lagu ammaanayo waa heerar xiriirsan oo meesha dhexda ay isugu imanayaan ay ereyada qaarna loo arki karo inay qofkan dhaleecayn u yihiin qaarna loo arki karo qofkan inay xooga yar ammaan ugu jirto. erey labadaba loo qaadan karo ayaa dhexdii soo gelaya
kan marna kan u dhowaanaya marna kan u dhowaanaya hadba sidii qaraa'intu ay u xoojiso marka saasay u xiriirsan yihiin labadoodu. kuwaasna waxaa ka mid a uu ku leeyahay qofka in lagu tilmaamo sheikh. inaga sheekh markaan ahdo qofkii ammaan bay u tahay, laakiin cilmi xadiidka marka la joogo waa ammaanta meesha ugu hooseysay, waxay ku dhowdahay inay dhaliil noqoto. qofkaas sheekh marka la yiraahdo, qofkaas waa sheekh marka la yiraahdo ammaan, waa ammaan iyo tacdiilin aad ugu dhow in qofkaas la dhaliilayo wax laga sheegayo ayuu aad ugu dhowdahay. marka 12 aan tilmaamay haddaan isu eegno, waxaan leenahay maraatibu tacdiil iyaga haddaynu ka bilowno kadibna ku xejinno maraatibu aljarx, saasaan u xidhiidhinayna. marka waa 6 iyo 6. wuxuu yidhi waxaa ugu sarreeya tacdiilinta awthaqu nnaas, qofka dadka ugu siqaysan. waxaa kaloo ka mid a laa yus'alu can mithli, qofkaasoo kale qof la isweydiiyo ma ahaba. hadda imaam shaafici ma hiqa mise maaha? hadduu qof imaam shaafici hadalba in laga keena maba ahaba. imaam axmed, imaam malik hadalba kama taagan. saasoo kale markii la yidhaahdo qofkaas laa yus'alu can mithlihi, isagoo kale laysma weydiiyaba, wuu dhaafay heer la qiimeeyo. kadibna hiqatun hiqa, in tilmaantii 2 jeer lagu soo celiyo, ama hiqatun xaafid ama hiqatun sabt. kadibna iyadoo keligeeda hiqa la yidhaahdo, qofkaasi waa xuja, waa imaam, iyaduna waa heer kale. kadib waxaa kaa kasii hooseeya laysa bihi ba'sun, waa dhibaato male, saduuq wayaan, qof run sheega, saduuq. laysa bihi ba'sun, qofkaasi dhibaato ma laha, iyaduna waa derajo ka mid a, way ka hooseysaa kuwan kale. laysa bihi ba'sun macnaheedu maaha qofkaas waa qof fiican oo warkiisa toos loo qaadan oo saxiix noqonayo loogama jeedo. waa qayb ka mid ah derajooyinka qofka la siinayo. yurwa xadiithuhu, waxaa ugu hooseysa yurwa xadiithuhu, xadiidkiisa waa la wariyaa, ama qofkaasi waa sheikh, ama waxayna ka mid yurwa xadiithu, waxaa looga jeedaa xadiidkii waa laga qaadanaya qofkan, waxaana loo isticmaalayaa arrin aynu soo marno ahayd mutaabaca iyo shaahid. xadiidyo kale oo aan hayno markaan rabno taageero inaan u raadino, war xoojinaya inaan u raadino, si aan laga yaabo intaan daciifnimadii darnayd uga kaxayno, ama aan isu ururino dariiqyadii ku yimaadeen, xasan ka dhigi karno, xasan ligayrihi. waxyaalahaasoo kale si aan xadiidyo kale u kabno, qof nooca halkan jooga warkiisa waan qaadan karna. haddii uu halkan hoos uga dogo, macnaheedu waxa weeyaan waxaan gaadhnay maraatibuljarx baan gelaynaa. ka sheekhnimadii haddaan kasoo degno, waxaa ku xigta waxaan leenahay qofkaas fiihi maqaal, waxbaa laga sheegay qofkaas, waa qof duran oo wax laga sheegay. fiihi dacfun, daciifnimaa ku jirta. sayi'ul xifd, xifdigiisu wuu xun yahay. layin, waa qof layin oo jilicsan, liidashay muujinaysa marka xadiidka la joogo. daciif, laa yuxtaju bihi, lama xujaysto. daciifun jiddan, qofkaasi aad buu daciif u yahay warkiisu. muttaham bilkadib, qofkaas been baa lagu tuhmo, kaanu yiri xadiidkiisu wuxuu noqonayaa matruuk. dajaal, wadaac, kadaab, qofka heerkan jooga isaga wuxuu noqonayaa kuwii maxay ahayday warkooda uu noqonayay mawduuc iyo matruuk aan waxba laga soo qaadanin. akdabu nnaas, waa kii afcal, awthaq iyo akdab labadii cirif bay kala joogaan, labadii daraf. marka akdabu nnaas, kuwan culimmada qaarkood ay leeyihiin qofkaas in wax laga wariyo maba banaanaba, warkiisa inta lasoo qaado in la wariyo maba banaanaba. culimmada qaar, dadka marka qaar ay tilmaamayaan qofkaas in wax laga wariyo baba xaaraan noqonaysaba, saas u tilmaamayaan. marka ereyadan waa tusaalayaal ka mid ah heerarkan. waxaa laga ereyo kale oo waxaa jira ereyo kale oo darajooyinkan kala duwan la soo gelin karo. intan tusaale ahaan un bay u timid 6 iyo 6, 12kaas heer ayaan ku tilmaami karnaa maraatibuljarx watacdiil. kulligoodna inooma uusan wada sheegin, walow qaarkood uu ku tilmaamayo marka uu sharxayay sheekhu raximah allahu tacaala. intaas sida aan ka garanayno, aan horena usoo marnay, qofka marka la qiimeynayo in qofkaas la yiraahdo maxay ahayday fiihi maqaal iyo fiihi dacf, lama mid noqonayso marnaba mutaham bilkadib, ama waa kadaab, ama akdabu nnaas. sida awgeed qofkan markii la dhaliilayo waa inaan eegno waxaan lagu dhaliilayo ma yahay wax warkiisa marduud ka dhigaya iyo celis.
waa la dhaliilay intaan nidhaahno ma tuurayno, waan qiimaynayna waxaan qofka laga sheegay ee lagu dhaliilayaa ma yihiin wax qofkan warkiisa lagu diidi karo. haddii aan lagu diidi karinna ilaa heerkee bay wax u dhimaysaa. ma jirtaa cid kale oo wax warkan dhaliishan ka hor imanaya sheegtay. Marka ereyadan markaan eegayno waa inaan kuwii kale ee culimadii kale iyagana barbar dhigno. Marka culimo waxaa jira iyagoo baarka sare ka jooga marka la joogo aljarx watacdiil, dad iska sheegto iyo kooxo isku ammaana way jiraan, laakiin markaan ka hadlayno culimada waxaa jira tusaale ahaan aan soo marnay maro badan aan tilmaamay yaxya ibnu maciin, cali ibnu madini, culimadaas imaam axmed inay joogaan meel sare markay noqoto qiimaynta dadka xadiidka warinaya. marka xadiidkii aan baarayno waxaan raadinaynaa waxyaalihii ay dadkan ka yidhaahdeen. tusaale waxaan soo aragnay tahdiib ulkamaal lilimaam almizi oo kale, aan soo eegaynay marka qaar dadka ay dhaliilayaan in sheekh culimadii waaweyneed bukhaari, axmed, yaxya ibnu maciin kuwii lamidka qofba inuu wax qofkaas ka odhanayo, kabacdi kuwaasaa loo eegayaa. markaan eegno dadkan waxay ka yidhaahdeen jarx iyo tacdiil ayaa waxaan aynu qiimayno isnaadkii xidhiidhsanaantiisa iyo wixii la mid ah, sabti sanadkiina aynu eegno, qofkii warinayana aynu eegno wixii laga yidhi, markaas ayaa waxay noo soo baxaysa warkani ma maqbuul ba mise maqbuul maaha. waayo waa kii sheekhu bilowgiiba inoogu soo yidhi in xadiis aaxaadi la daliishado waxay ku xidhan tahay in la baaro oo la dabagalo xaaladaha dadka soo warinaya. xaaladihii qayb ka mid a waxa weeyaan jarxigii iyo tacdiilkii ayay ku imaanaysa inaan ku ogaano qofkaasi heerka uu joogo iyo in warkiisa uu yahay maqbuul ama marduud. dhaliilaha qofka loo soo jeedinayo sidaan sheegnaba isku heer ma noqonayaan, sidaa awgeed waxay noqonaysaa inaan kala ogaano oo aan qiimayno qofkaasi waxa lagu dhaliilay iyo heerka ay yihiin iyo qaab natiijada ka dhalanaysa ee warkiisa lagu qiimeynayo. xifdigiisu wuu liitaa iyo qofkaasi waa matruuk aan wax kasoo qaad lahayn, waa labo aad u kala fog oo ay tahay in mid walba qiimeyntiisa gaarka ah la siiyo. wariyaha haddaba qofka tacdiilka samaynaya, qofku intuu qof iska arko uu yidhaahdo qofkaasi waa qof wanaagsan uu iska ammaano lama doonayo. waxaa la rabaa inuu sababeeyo oo uu ammaan faahfaahsan oo sabab leh uu qofkaas siiyo. haddii laakiin uu yidhahdo ninkaas waa nin fiican oo maasha allah khayr ahlu khayr aho gadh weyn oo khamiiskiisu gaaban yahay oo markas cimaamadda aan dhigin, waxaas inaga hadda saasaan ku qeybana sheekh weyn baan u naqaana qofkii saasa. laakiin taa lama doonayo. qofkan warkan uu warinayo wax lagu qiimeeya laga rabaa. dharku xidhan yahay waa sheeko kale, garkiisa iyo taasna waa sheeko kale, laakiin ma saamaynaysaa xadiidkan uu warinayo wax u dhimaya oo saamaynaya ma yahay waxani wax qaadix ah oo dhibaato u keenaya ayaa laga hadlay. haddii aysan ahayn qofkaas wixii lagu ammaanayo wax xadiidka saamayntaas ku yeelanaya, ama qofkaas waxa lagu dhaleecaynaya aysan ahayn wax xadiidkiisi saamaynaya, waxaa laga yaaba waxaas inay laba qof oo isku dhacsanay inay yihiin oo iska xagxaganaya, taasna wax kasoo qaad ma yeelanayso. sidoo kale ma aha jarxiga iyo tacdiilka in laga aqbalo qof aan dadkeedii ahayn, qof aan isaguba cadli ahayn, cid kale jarx iyo tacdiil uma samayn karo. waa inuu isagu marka hore yahay qof cadli ah, waayo xukun bu qofkani xukumay, qofkan waa wuxuu ku xukumayo. sababta keenaysa in jarx iyo tacdiil maadaamay xukun tahay, qaadigu hal qaadiba wax xukumi karaa sooma, jarx iyo tacdiil hal qof ayaa qofkaas ammaantiisa loo qaadan karaa, sidoo kalena dhaliishiisa loo qaadan karaa. inay laba noqdaan iyo inay saddex noqdaan khasab ma noqonayso. sida awgeed waa inuu isagu qofkaasi cadli yahay, warkiisa lagu kalsoonaan karo. waxaa kaloo iyadana muhiim ah qofka dadka marka laga hadlayo ee jarx iyo tacdiil loo samaynayo in aad looga fiirsado. waayo dad muslimiin ah sharaftoodii cirdigoodii ayaa laga hadlaya. in la iska dhayarsado oo dadkii wax laga sheego wax fiican maaha, waxay noqonaysaa kiibo. sida awgeed culimada xadiidka kutubta xadiidka kan marka la dhaafo marabad waxaad ku arkaysaa sida ay uga hadlayaan ay u eegayaan waxaan horta ma bannaan tahay dadka in wax sidan looga sheego oo la dhaleeceeyo oo intoodii bannaanka la keeno kutubtii lagu qoro. sababta keenaysana waxa weeyaan
in xadiidka nebiga sal ly slam laga ilaaliyo dadka beenta ka sheegaya ayaa keenaysa in dadkii laga hadlo oo la baaro. Laakiin waa in aan lagu balbalaarsanin oo aan lagu talax tegin waxaan qofkan munaasib ku ahayn aan la sheegin iyadoo aan laga fiirsanin. Okay, taas dadka sharaftooda inaan meel lagaga dhicin, waayo waxani qofka wixii laga sheego meel bay ku qormayaan, waana waxaan weligeed qofkii ka hadhaynin. Dadka sharaftooda in la dhayarsado, cirdigooda lagu xadgudbo iyaguna maaha. Marka in aad laysaga ilaaliyo. Waxaa jirta culimada qaar, imaam Bukhaari oo kale, aad ereyada xitaa isticmaalayaan qof daciif oo de aad u liita xitaa marmarka qaar markay tilmaamayaan waxay u isticmaalayeen ereyo afgobaadsi ah. imaam Shaafici oo maqlay ardaygiisa imaam Almuzani oo le qofkaas waa qof aad u been badan, hadal adag ku leh. Wuxuu leeyahay ereyadaada qurxi oo si kale u dheh qaabkaad ereyga u dhahaysid, hadal aad u kakan oo saasoo kalaa iska dhowr inaad isticmaashid. Culimada qaarkood marmarka qaar markay si ay isaga ilaaliyaan inay qofka hadal weyn oo culus oo meel ka dhaca ay ku yiraahdaan, way afgobaadsan jireen iyagoo qofkaas inuu waxba laga qaadanaynin sheegaya, ayaa haddana qaab latiif oo fudud oo aan aad u kakanayn ay u isticmaali jireen markay ka hadlayaan qofka. intaas insha allahu tacaala ayaan maanta cashirkan inoogu soo koobananaya. cashirka ku xiga oo ah aan rajeyn in noqdo gabagabadiina, waxa insha allah uu qaybtan kusii xiriirsanaan doonaa, maaha qayb cusub laakiin waa qayb lasii xiriidha gabagabada sheekha oo uu sidaas kusii wadi doono insha allahu tacaala. laakiin intii sida haddaba aan ka arkayno, intii badneyd kitaabka wixii aynu ku soo marnay ayaa dib inoogu soo noqonaya iyagoo si gaar ah farta loogu fiiqay oo laynoogu baraarujinayo inaynu ogaano. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.